gaalkayga hortaana ugobaaya inawada gamaygu ku geeraaraya dabxa suuqeeda iyo gowracan diidaya inagaba warshacabku soo gaardiya gaalkayga hortaana ugobaaya inawada gamaygu ku geeraaraya dabxa suuqeeda iyo gowracan diidaya inagaba warshacabku soo gaardiya umbadkala godaani sugayayda inakala godku gulxidaanaya ubadkan gaajadiyo onka goyaydhaha ina goobta yurdan buu dabgaalinaya umbadkala godaani sugayayda inakala godku gulxidaanaya ubadkan gaajadiyo onka goyaydhaha ina goobta yurdan buu dabgaalinaya kala gargaarkay iyo gaabalaintaanan rabin ina gulgulkay iyo kala gurku rabaa kala gogoynta iyo urgumaadkaanan rabin nina gahaas markiiyo kala goshku rabaa kala gargaarkay iyo gaabalaintaanan rabin ina gulgulkay iyo kala gurku السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته مدنيال يوه مروين مالك صدق سعوتان هالكني وإليس تي في لايف داوديال برنامج كينا مانتا وحا مرتين نوها أفاينكا جبهة ودنيغا حرينتا وقادينية مدني عبد القادر شيخ حسن هرموغي عداني barnaamijka waxyar kadib ayuu bilaaban doonaa waxaana kaga hadli doonaa xaaladda ogaadeenaya Ethiopia iyo guud ahaan geeska Afrika waxaana lafdhabar u ah barnaamijkeena maanta xafiiska jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya oo laga furay magaalada Addis Ababa caasimadda waddankaasi Ethiopia waan sugi doonaa afhayeenka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya inta uu ka soo geli doono khadka magaalada Addis Ababa si live ah ka horse waxaan jecelahay inaan halkan uga tacsidayno dhammaanba ummadii Soomaaliyeed ee maalintii shalayto lagu halaagay ama kooxda dhagar qabayaashii ay ku halaageen caasimadda ku-meelgaarka ee Jubbaland magaalada Kismaayo halkaasi oo ay ku dhinteen dad aad u tiro badan laysayna gacan ka xaqdaran waxaan leenahay ehelkii iyo qaraabadii iyo dhammaanba intii taqaanay dadkii halkaasi ku shishiiday ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacana ilaahay caafimaad khayr qaba ha siiyo ummadda muslimiinta waxaan ka rajaynaynaa in ay ilaahay u baryaan intii dhimatayna in uu u naxariisto ubadkoodii iyo ehelkii qaraabadii ay ka tageenna samir iyo iimaan ka siiyo inta dhaawacana uu ilaahay u boogadhayo ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo dunida ka joogta waxaa ku socda waxay maalintii shalayto ahayd maalin madow oo aad iyo aad u murugo badan kadib markii kooxda dhagar qabayaashii halkaas ay ka geysteen xasuuqa ay caadada ka dhigteen hoggaanka nidhaahda afhayeenka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ayaan filayaa inuu khadka ku soo jiro marka barnaamijkeena inta badan toobigiisu kaasoo ahaan doonaa kala gogoynta iyo urgumaadkaanan rabin nina gahaas markiiyo kala goshku rabaa
يقرب العنقح لما رايدا إنك عندي يقاق بولو روا irtooban guduudlan wargastayda nina dabarka gunku wasigijiya يقرب العنقح لما رايدا إنك عندي يقاق بولو روا irtooban guduudlan wargastayda nina dabarka gunku wasigijiya قاريدو إيدي قبل كان ديدي إنك هاريدي يقاسي وأقول gacmoodhiigla iyo gaasaskan diidaya nina kumaaca nooca kuwa soo geedigeli قاريدو إيدي قبل كان ديدي إنك هاريدي يقاسي وأقول gacmoodhiigla iyo gaasas waa hagaag daawadayaal meel kastoo nagala socotaanba waxaan leenahay wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaynaa asxaabta sharafta leh ee qaybta commentska salaantooda kasoo gudbinaya aniga oon mid mid u sheegi karin sidaan horeyba u sheegnay barnaamijkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay xafiiska jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeniya ee laga furay magaalada addis ababa xafladda furitaanka waxaa kasoo qayb galay diblomaasiyiin fara badan oo ka kala socday dowladaha waddankaasi Ethiopia u jooga magaalada Addis Ababa sida dalka Turkiga, Mareykanka, Canada, Jarmalka, Eritrea iyo ururo fara badan oo mucaarada waxaana barnaamijkaasi xafladda munaasabadda furitaanka aan waraysi kala yeelan doonaa oo barnaamijka marti noogu ah afhayeenka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeniya mudane cabdiqaadir sheekh xasan hirmooge cadaani oo ku sugan xaruntaasi xafiiska laga furayey ee magaalada Addis Ababa waxaan filayaa in uu daqiiqadan soo socda uu soo geli doono waxaa kolley laga soo sheegaya magaalada Addis Ababa in uu khadkeedu yahay mar walba mid aad iyo aad u hooseeya balse waxaan ku rajo weynahay in uu cadaani soo geli doono khadka kana warrami doono xaaladii maanta halkaasi ka dhacay sidoo kale waxa aan rajaynaynaa in uu mudane cadaani afhayeenka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeniya inala socodsiiyo xogihii ugu dambeeyey ee soomaalida ogaadeniya Somali State iyo halka ay marahayaan jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeniya ma aha xafiiskii ugu horreeyey ee ay furato balse waxaan dhihi karaa xafiiskan laga furay maanta magaalada Addis Ababa siyaasad ahaan waxa uu noqonayaa midka ugu xooga badan ee arrimaha siyaasadda jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeniya laga maamuli doono marka laga reebo xafiiska magaalada Jigjiga oo inta badan mas'uuliyiinta jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeniya ay iyagu ku sugan yihiin barnaamijka sidaan horeba idinku sheegnay cadaani ah ayaa marti inooga waan sugaynaa qolada farsamadana waxaan rajaynaynaa in ay iyaguna inoo gacan fududeeyaan si aan barnaamijkeena hore ugu galo inta ka horeysase bal aan xogaa ku yaraha nasanno barnaamij ama barnaamijka dhaantadan ka turjumaysa xaaladda isbeddelka adduunka Kala gargar kaya gabala intanan rabin inna gulgul kaya kala gurgu rawa kala gogoy intayo urgumadkaanan rabin nina gaas markiya kala goshku rawa Kala gargar kaya gabala intanan rabin inna gulgul kaya kala gurgu rawa kala gogoy intayo urgumadkaanan rabin nina
مجاسين وما تعرفه ما يركب ديار Irtoban gudud lan wargastayda inna tabarka kun kuwa sigijiya Irtoban gudud lan mudanayaal iyo marweyn sidaan horeba idiin sheegnay khadka waddankaasi Ethiopia ayaa ah isagu mar walba qayrkii ka hadh ah oo hadba sida aad rabto ama howlaha aad ka leedahay aad uga helaynin qayrkii buu ka hadhay iyada weynba qayrkeed ka harsan waxayna sheegtaa in ay tahay dawlad aan la gumaysin adduunka oo dhan ugu horreysa se aad wada aragtaan khadkii ma aha maalintii koowaad ama maalintii labaad waa khadkeedu mar walba aad iyo aad buu u hooseeyaa aad buu u xun yahay waa uu noo suuro geli waayey program b live in uu si toosa u soo fadhiisto afhayeenka jabhadda waddaniga xoreynta ogaadeynaya mudane cabdiqaadir sheekh xasan cadaani oon filayna inuu barnaamijkan si toosa u soo fadhiisto hase ahaatee waxay noqotay in barnaamijkii aan u wareejino dhanka live whatsappka isagiina waa ay jiidanaysaa oo mudane hello video ahaan waxaan maraynaya waxaan ka xabsantahay hadda waa khadka aad buu bal haddaan ku celino mar labaad bal soo gala qaybta video sidaan sheegnay qayrkeed bay tani ka hadhay qayrka liirid إذا تنحى كارك ميزان صوم ما تكارك تمام يا يبقى هدو صوت حلا ما أركيان في الليل مدني عود الآن بس عود بين قوني ساعة هذا ما يسمع ما يمغشى مدن عدان ما يمغشى لو mudanayaal iyo marweyn aad iyo aad baanu uga xunnahay waxaad moodaa haddana qaybtii social media ama whatsappkii aan ugu talagalnay in ay iyadana xaaladooda ay sidaa tahay weli waan dadaal ayaanu ku jiraa sidii barnaamijka u qabsoomi lahaa hase ahaatee inaad iska sii sigtaan baa islaan lahayn cadaanigo soo dhawaayo aniga cadaani ka noqonayo shubaha ugu dambeeyey intaa tabartayda idinsiin doona ha cabsanina Okay, هذا مقشع. هلو. هذا واد يقول مدن ما مقشع هذا. وانكم مغلها.
dhegaystayaal waxaaduu soo galay qaybta khadka waxaan filayaa haddii uu cod jiro aad codkiisa maqlaysaan inaad haa soo qortaan mudane caddaani hirmooge waxaad si toosa ugu jirtaa barnaamijka ls tv live bal waxaan jeclaan lahayn in aad ugu horrayn xaaladihii ugu dambeeyey ee soomaalida ogaadeenaya aad nala wadaagto aniga iyo daawadayaasha oo muddo ku sugahaynay bismillahi raxmaan raxiim kolka hore waxaan horeysiinayaa tacsi aan rabo inaan u diro ama la wadaago dadka soomaaliyeed khasaarihii iyo xasuuqii ka dhacay magaalada kismaayo nimanka arxanlaawayaasha ay geysteen oo dad badan oo qiimo leh oo muxuu ahay xildhibaano aqoonyahan iyo dad soomaalida qaali ku ah sidii gabadhii hodan naaleeye inaan maaragtay aan u tacsiyeeyaan doonayaa iyo dad dhowr iyo 20 ah oo meesha ku shahiiday iyo dad muxuu ahay lixdameeye ku dhow oo ku dhaawacmay iyo khasaaraha hantiyadeeda fara badan iyo argagax ummadda lagu riday arrintaas oo ka xunnahay shacbiga Soomaaliyeed waa isku wada dareen qaraxyadan hoteelada Muqdisho iyo magaalooyin kale oo ku soo noqnoqdeen waxaan ka rajaynayaa ummadda inuu ka bixiyo muxuu ahay circle-kan muxuu ahay geerida midda kale maanta waxa u dambeeyay xafiiskii jabhadda oo mudan cadaan balintayna xafiiska u gelin waxaan jeclaan lahay inaad warbixin la wadaagto gudaha ogaadeen iyo xaaladihii wadanka qaybo kamid ah waxaa laga soo sheegayaa abaaro sidoo kale waxay maalin dhexdii ahayd jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen ee soo saartay war saxaafadeed ay dowladda Somali State iyo guud ahaan shacabka waa uga digaysay ama lagu baraarujinayay in ay jiraan xaalado fara badan oo dadka shacabka colaad iyo dhibaato u keeni karta iyo deegaano bal warbixin waxaan jeclaan lahay in aad warbixin kooban naga siiso xaaladda ogaadeen horta xaaladda hadda way gugii baa la marayaa oo muxuu xilli gamasha lagu jiray xagaagii baa la galay dhul badan baa gu fiican helay dhul badan abaar buu ahaa gobolka Nogob intiisa badan koonfurta Qorraxay gobolka Shabeelle intiisa badan qaybo kamida Afdheer iyo qaybo kamida Liibaan intaasuba iyo qaybo gobolka Shinil kamida intaasuba roobku ku yaraa inta badan Faafan iyo Jarar iyo Erar iyo maxalla Afdheer inteeda badan iyo Liibaan inteeda badan aad u fiicnaayeen daawo naftigeedu way fiicnayd marka abaaro badan baa jira oo dhinacyada xagga daawo meelo kamid ah roobku kuma badna cabsi baa jirta sanadkii hore waa kii roob la'aanta ahaa yani dayrtii hore guganna sidii rabay uma diin taas way jirtaa in la sahamiyo oo lagu baraarugo arrintaasaa socoto dowladda Soomaalidana waan ku baraarujinaynaa dowladda federaalkana waanu kala hadlanay muddo bil ka hor 2 bilood ka hor baa actually ahayd 2 bilood ka hor hanti badan baan u qoondaynay oo in raashin lagu gado oo dhulka Soomaalida gargaar ku diyaar ahaado meelo badan baa macluul laga soo sheegay roobka oo yar iyo xoolihii oo ka kala tegay iyo tuulooyin baahi laga sheegay yaa jirtay dhanka kale xagga nabadgelyada guud ahaan aad u fiican yahay markii Ethiopia la garab dhigo iyo gobolada kale ee Geeska Afrika meelo yaryar waxaa jira dadka maamulkii TPLF wuxuu ku sasiyay wax la yiraahdo qabale aad raashin ku hesho qabala aad shaqo ku raadsato qabala aad ku xoogsato wax la yiraahdo qabale oo muxuu ahay wax lagu soo dabanayo waa dadka markii la cayreeyay la cabsiiyay ee la ururiyay ee la xiro oday ee meel lagu ururiyay risq bay ka dayaan marka dhibaatadaas jirta meelo badan oo dhulkeena kamid ah bay isku dhacyadaas meelo badan khilaaf aan fiicnayn oo aan gacan qaad gaarin baa ka jira halka dawladdu inay maartay jilaac iyo dabeec inay muujinayso yaa ka muuqday Allahu musta'an waxaa la rabay inay si fiican maartay inuusan meel dawlad ka jira gacan qaad qabiil inuusan ka dhici karin taas la rabaa waa hagaag
وهاك جبهة ودني وحرين توجدين أنت أي قشري دلك جديد وجدين يجيب أقول لا بطي كأهان سي مدح هذا وصل رئيسه وحاجرتي أما هشيسي أحمري أو أنا لفي إثيوبيا وسامحي إن أي حفيسيا ميلا بدن كفرته أو جدين إثيوبيا أنت هذا كلامه بلانو سو نقولنا كان مين أوفيس كان عندي أديس أبابا xafiisyadii kale gobolada ogaadeen iyo baryahan waxaa laga soo sheegayay in Somali state maamulkeeda iyo dad jabhadu ay waxoogaa ay jir in wadaadi anigu ma hadal baa labadi waa hagaag mudanayaal iyo marwooyin waad maqashaan dhunta la hayaa khadka Ethiopia waa wadan run ahaantii aad iyo aad wadamada ugu dambeeyay ayuu ka mid yahay mar walba khadkiisu waa sidan oo kale weeyaan saad la socoteen ba markii hore waxaan ku talagalay inuu barnaamijka si live ah uga qayb qaato su'aalo fara badanna halkan laga weydiiyo afayeenka jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya mudane Cadaani Hirmooge oo filayo hadda si toos ah disaba ugu jira mudane Cadaani wad soo laabataan filaya سفيان وهجاك هذا عكاو كان نديبسين يا سيدي هراء حفيز يدن أنا وصل لبنا أدي سبب بلو حضر بحنا جالس أنت حفيز اللي قفر يجودها وقاعدين يقابها أي وقش قيس هذا جبهة ودري وحرين توقاعدين قبل أنت بدن حفيز وفريين مدة تدابلات سديد بلاده وأنت قبل كفافن ما هذا جيجي حفيز وين قبل كفافن حفيز هذا كلنا وي شقين حفيز قدوميها يكي حويها وي شقيان هي هذا كله اسمه وين هذا نلوسه قروان شاء الله لما قبل الله أنت هذا بدن ويكفرين قبل الله يتجمعين أنت هذا بدن سفي عنه شقيان قار هذا مرة ولا فريد وأنا ويجري تجمعين كقار وكيله يوصحني يوصعد على اللوتري لكن أنت بدن ذلك ويكفرين وهجاك مجالة أدي سبب يلا هات تكون سوغنتها وقت كده الله المستعان حفيز كيت ماذا نمي مغشان وهذا ركتان وان كاي ذكرها اللي قلنا هنا آدي آد نخدك آدي آد أحون waxau sheegay xog afayeenka jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen mudane Cadaani oo ku sugan magaalada Addis Ababa in xafiisyo fara badan laga furay dalka ogaadeenaya oo ay jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya hadda shaqooyinkooda si toos ah uga socdaan aan u soo laabana markuu inagu soo noqdo waxaan si toos ah u guda geli doonaa lafdabarta waraysigeenan oo ahayd magaalada Addis Ababa oo haatan ku sugan yahay maantana laga furay xafiiskii ugu weynaa ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya mudane Cadaani khadka aad u xun waxaan filayaa Ethiopia oo dhan baad la qabtaan khad xumadan iyo cunays qabadkan waxaad balaan u soo laabano xafiiskan Addis Ababa وهجاج مدنيال iyo marwooyin halkani waa Ilays TV barnaamijka waxa martiin noogu ah inta joogtay iyadoo dhagfaarsanay waa halkeeda intii aan la soconina waxa martiin noogu ah barnaamijka afhayeenka jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya mudane Cadaani Hirmooge oo si toos ugu jira khadka xitaa waxaan filayaa qaybta telefoonka toosadii loo waco isagu in uu ka basiixun yahay oo uuna gelahaynin marar fara badan baan isku daynay inaan telefoon ahaan ku wacno mudane Cadaani khadka xun waxaan jeclaan lahaa inaad si toos u gashay su'aasha ah saaka waxaa la furay xafiiska jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya ee magaalada Addis Ababa bal inaad xogaa backgroundka xafiiskan inaad nasiiso horay wuxuu ahaan jiray iyo maanta cidda ka soo qayb gashay xafiiskaasi iyo waxa uu shaqadiisu ay tahay bismillah xafiiskaas maanta yaa dib loo furay 25 sano kadib markii 94 oo la fay xafiiskeedii ka baxday halkan xafiiskaas waagii door weyn buu qaatay dhismihii dawladii ugu horeysay maamulka Soomaalida
xafiiskana muddo 6 bilooda uu shaqaynayay guri kale oo ka yar baa lagu shaqaynayay marka guri inta la diyaarinayay asbuucana la diyaariyay marka waxa ka soo qayb xaflad weyn baa loo qabtay ficlan oo diblomaasiyiin fara badan iyo siyaasiyiin badan oo Ethiopiana iyo saxafiyiin iyo dadka daneeya isbedelka iyo muxuu ahay dhaqdhaqaaqa siyaasiga ee geeska Afrika socda ay ka soo qayb galeen iyo shacbi Soomaaliya oo aan tiro yarayn oo ka soo qayb galo xubno jabhadeed iyo jaaliyada Soomaalida oo jaaliyadan yareen baa Soomaalidan ka joogta 40 kun 50 kun ku dhow xafiiskana wax badan buu qabtay xagga sharciyada iyo xagga baasaboorada iyo taysirooyinka iyo cadaasiyaha iyo muddadii uu joogay uu ka dulqaaday xataa xaafadoodii maartay iyo dhul in la siiyo iyo hawlo badan buu la wadaa marka xafiiskan saas uu ahaa in ONLF ay nabadda ka go'an tahay inay door siyaasi oo weyn ka qaadanayso isbedelka Ethiopia kaalin weyn ka qaadanayso in isbedelka dadka Soomaalida ogaadeenaya iyo Somali state marxaladan inay rabto ONLF inay kaalin weyn oo hogaamina ka qaadato la xisaabtanto dadka Soomaalida matasho la xisaabtanto ururada siyaasiga Ethiopia la xisaabtanto dowladda federaalka la xisaabtanto dowladda kililka dadka Soomaalida difaacda midayso xafiiskan waa xafiiska diblomaasiyadda iyo xiriirka dibadda iyo xiriirka dowladda federaalka marka waa xafiis ballaaran staff badan buu leeyahay waxa ku jira xafiis weyn oo peace building leeyahay ama dhisida nabadda waxaa jira xafiiska xiriirka federaalka waxaa jira xafiiska xiriirka jaaliyadda xafiiska ururka dhalinyarada xafiiska ururka haweenka xafiiska ardayda jaamacadda Addis Ababa waxaa jira xafiiska xiriirka ururada iyo xisbiyada siyaasiga ee Ethiopia waxaa jira xafiiska humanitarian arrimaha samafalka waxaa jira xafiiska warfaafinta iyo communicationka marka ama xiriirka aan iraahdo marka waa xafiis ballaaran staff badan leh oo dad diyaarsan oo afkii iyo dhaqankii garanaya iyo luqado kala duwan iyo diblomaasiyiinta afafka kala duwan ku hadlaba si halka looga qoodiyo dadka Soomaalida iyo isku xidha caalamka oo isbedelkan Ethiopiana door weyn ka qaata horumarka iyo dhaqdhaqaaqa siyaasiga dhulkeena kaalin weyn ka qaata si aad qurux badan iyo dad tiro badan baa ka soo qayb galay waftiyo joogadeed oo meelo kala duwan ka soo qayb galay wafti ka yimid gudaha dalkeena oo hogaaminayo gudoomiyaha jabhadu iyo wufuud ka timid North America iyo Europe iyo East Africa inta way ka soo qayb galeen aniga oo xafiiskii dirlaba qabanqaabadiisii wadayna anna dirlaba keen وهاجاك bal waxaad wax nooga sheegtaa mas'uuliyiinta ama dadka ajaanibta ka socda diblomaasiyiinta beesha caalamka ee xafiiska maanka xafladda lagu daahfurayay kasoo qayb galay waa jireen wadamada reer galbeedka intooda badan way joogeen wadamo badan oo reer galbeed oo Mareykan iyo Ingiriis iyo Jarmal iyo Holland iyo ka xusuusto muxuu ahaa Ireland iyo ururada samafala iyo muwaajada aqoonyahana iyo jaamacadda xisbiyo badan iyo qowmiyado badan oo Ethiopia sida Gambeelaha iyo Benishangolka iyo Hiriinta iyo Oromada Anfarta dawladda way ka soo qayb gashay xisbiga wadanka xukuma saxaafad Allah musta'an Somali community Somali amba safiirka Soomaalida iyo safiirka Afrikaan oo kale way ka soo qayb galeen marka aad bay xafladu maartay macna weyn bay sameeynaysaa waxayna fariinteedu ONLF way ka go'an tahay nabadda ONLF waxa ka go'an xaqa siyaasiga dadka Soomaalida ay ku matalayaan go'aaminta aayaha Ethiopia miiska Soomaalida way fadhidaa qadarin weyn bayna rabtaa waana qasab inay kaalinteeda qaadato ONLF nabadda way ka go'an tahay waxaan u qaadanay xafiiskana Addis Ababa qalbigeeda wadnaheeda waxaan soo dhex tagnay inaan dadka iyo danaha dadka Soomaalida inaan ku difaacno waan gartay ugu dambeyn mudan cadaan hirmooge waxaa tahay afayeenka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya waxaa baryahan jiray culays fara badan oo tan iyo intuu afgembiga ka badbaaday ra'iisul wasaaraha waddankaasi Ethiopia culays fara badan oo la saaray dalka guud ahaanba dalka Ethiopia intii xilliga ka dambeysay xaalad noocee ku jira والله waddanka sid guud uu degan yahay waxa yeer jira dimuqraadiyad barad weeyo oo af kulul iyo bayaanaad la isdaafsado iyo waxoogaa madaxay kuusana uu jira
si markii loo eego waa si fayo weeye oo waa Ethiopia waxayna hadda ka hor la qabsanin dimuqraadiyad xisbiyo kuwii xisbil xaakimka ama kuwa xukumo oo iska si mucaarad u hadlaya biyada mucaaradka oo fasaxan qowmiyado hana la siiyo ismaamulo iyo zoonan leh waxoogaa anna way kan badan way jirtaa ayashee waa aad baan loogu soo gurmaday wadankan oo reer galbeedku dhaqaale badan iyo aqoonyahan badan iyo waxay keeneen la taliyaal fara badan bay keeneen marka wuu degan yahay dibadaha markii la joogo dadka balaayoon baa ya badanaa laakiin deganaasha jirta meelaha ugu degan hadda la isla qirayna ee annagu ku faanayno oo la fiinay keentay unilateral decision in nabadda gobolka Soomaalida meesha ugu nabad badan weeye maanta geeska Afrika iyo Ethiopia taana abaalkeeda awal iyo aakhirba waxa iska oonale وهجاج سؤال ugu dambaysa hadii aad ku soo gabagabayso mudane cadaani hirmooge afayeenka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya adiga oo ka tagaynin tacsidii iyo musiibadii ka dhacday magaalada Kismaayo caasimadda ku meelgaarka Jubbaland maxaad ummadda Soomaaliyeed ku sabootiinhay waxaan ku sabootiinayaan jabhadda howlgal ballaaran bay ku jirtaa xogayihii wuxuu joogaa North America hadda aan filayo inuu Canada joogo sidaan ku wado wafti aan kamid ahay waxay u baxayaan xagga East Africa iyo Koonfur Africa iyo Pacifica shacbiga Soomaaliyeed iyo jaaliyadihii in la qabadsiiyo meesha wax marayaan in la isla jaan qaado oo gudi iyo dibad la isla haysto oo Soomaali isla haysato inaynu kala dhacno yaa la bartay oo muxuu ahaay la isla soconin inaan isla qabadsiino waxaan leeyahay dadka Soomaalida waxa weeye inay midoobaan gacmaha isqabsadaan maanta cidna ka bariimayaan cidna ku raali gelmayaan cidii ka caroonaysa iyada u taala cidina kama horjoogsan karto annaguna arintaas aan ku baaqaynaa waana hirgelinaynaa waxaan ka codsaynaa walaalaha Soomaaliyeed inay midnimo iyo iskaashi iyo inay wax isu yihiin ka muuqato iyo dadka Soomaalida marun silaca in laga soo afjaro silaca iyo kala daadsanida iyo iskarsooni darrida iyo kala qaybsanaanta iyo isdilka iyo qaxa iyo gaajada iyo hooseynta iyo niyad jabka in lagala dagaalamo dadka Soomaalida dhul barwaaqay ku nool yihiin annaga dhankanaga waxaanu ballan qaadaynaa hadii la yiraahdo inaan meeshaan joogno qof Soomaali ah inaan lagu dulaysan weeye ujeedadayadu aad baan uga xunahay waxa ka dhacaya ka dhaca Muqdisho waxa ka dhacay Kismaayo dadka Soomaaliyeed inay arintaas ka soo afjaraan ba ya waajib ku ah inay gacmaha isqabsadaan ba waajib ku ah in kacaanka qowmiyadaha isdhiska qowmiyadaha iyo midowga qowmiyadaha iyo toosida qowmiyadaha iyo muxuu ahaayay isfidinta qowmiyadaha dadka Soomaalida inay ku baraarugaan oo aan muxuu ahaayay laynaga dheereynin yaan ugu baaqaynaa waxaan ugu baaqaynaa inay hayaanka aan doonayno dadka Soomaalida aan ku midayno xaqooda Ethiopia ku soo dhacsana lagu karab istaago waana huba hadda ka hor waana lagu karab istaagay shacbiga Soomaaliyeedna guusha uu gaari insha Allah guul Soomaali anaga noo muuqata dadka iyaga oo dhibaatada ka baxda noo muuqata iyagoo xoog dhaqaale iyo xoog siyaasi ah yeesho xuquuqdooda oo si sharaf leh geeska Afrika ugu noolaada ayaa noo muuqata waa la samayn karaa marka intaas aan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed hadii la yiraahdo aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanow kaasi waxa uu ahaa afhayeenka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya mudane Cabdiqaadir Sheekh Xasan Hirmooge oo ku sugan xarunta wadankaasi Ethiopia Addis Ababa oo maanta laga furay xafiiskii ugu weynaa ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya kaasi oo muddo 25 sano ka hor albaabada la isoo ugu dhuftay aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudan cadaani aad baan idin salaamaya adiga dhageystayaasha kaleba aad waxaan idin rajeynayaa guul Soomaaliya nabad iyo horumar baan rajeynayaa waad mahadsan tahay sida intaas ayuu daawadayaal barnaamijkeenu inoogu yahay waxaan rajeynayaa ummadda Soomaaliyeed Kala gogoyn tayo urkumaad kaanan reebin
يقرب الانجح لما رايدا انك عندي يقاق بولو رما Irtaban gudud lan wargastayda inna tabarka gun kuwa sikiitiya يقرب الانجح لما رايدا انك عندي يقاق بولو رما Irtaban gudud lan wargastayda inna tabarka gun kuwa sikiitiya قاريدو ايدي قبل كان ديديا انك هيريدي يقاسي واقو ربا gacmoo dhiiglaya gaafafkan diidaya nina kumaaca nooca kuwa soo geedigeli قاريدو ايدي قبل كان ديديا انك هيريدي يقاسي واقو ربا gacmoo dhiiglaya gaafafkan diidaya nina kumaaca nooca kuwa soo geedigeli كنت تالا قرفي سوقر صورا رضا إن قولي استيا شو بقابي كتبي Kurti sharaf lo garwadeenan rabaan inaki gayood ubageelogay كنت تالا قرفي سوقر صورا رضا إن قولي استيا شو بقابي كتبي kurti sharaf lo garwadeenan rabaan inaki gayood ubageelogay كنت تالا قرفي سوقر صورا رضا إن قولي استيا شو بقابي كتبي وي